dhalinyarada banaanka jirta aad baa loo warxumo loogu kala geeya runtii xaqiiqaduna ma aha in ama dhalinyaradu xun tahay ama annagu aanu kumiyaalkii dadka Soomaalidu ay jeebka aan ku shuban ama aanu dhibaato ugu joogno Soomaaliya kulleeyba anagu taas ma aaminsan balse waxa weeye warxunta shiil meel walba adduunka waa jooga Soomaaliya jira dhex socota dad dhaantay dhugatana geel dhaantay kuwa diyaarad un saaran baa jira kuwa waraaqahoodu gacantoodu ayaan wax san dhigi karin baa jira waxan mooyee dad wada noocaas iska wada jira marka kuwa aan fahmaynin meesha aan u soconayo waxaynu doonaynaba yaa jiraan kuwa u qaataan meeshii iyagu ay ku ogaayeen Soomaaliya weligeedba inay fadhiyayso awoodna aan u yeelanin inay adduunka kaleeta indheeyaan tadawarka uu sameynhayo iyo xarakooyinka socda oo muxuu ahaa habeen walba isbedelaya ayaa jiraanin marka hadee waaba iska gar qof walba maskaxdiisa iyo garadkiisa ayuu hadlaaye inay wax uun iska wanjaaciyaan mar haday u boholiyoobayaan in Soomaaliya meesha iska fadhido mana suurtoodo adduunka wax fadhiya ma jiraanin tadawarku ma waa joogan haddayna haatan matal yar ka soo qaadnana bal hadda adinkaan idinka bilaabo awowyaalkiin maxay baran jireen ma New York bay imaan jireen iyo Washington iyo waa kuwan qolada inooga timid iyaguna waxa adink hadda haystaan ma ayna hay jirin sidee u noolaataan un bay ku xarbi jireen laakiin adinku waxaad rabtaan in scientific inaad noqotaan muxuu ahaa cilmiga adduunka dayax dushiisa lagu dagaayaan idinka sugayna inaad gaartaan annagana hawadanadu waa taas marka tadawarku waa kaana xataa dad badan oo aan u muuqanin ayaa jira inaynu geel iyo ari un daba soconno iyo jooneed sonkor ka dulaalo kaliya aqligoodu uu dherer leeyahay marka muxuu ku hadli karayaa qofkaayo markii maskaxdiisu intaas ay dherer leeg tahay muxuu ka arki karayaa adduunku heerka uu socdo iyo meesha uu isgaarayo muxuu ka arki karayaa dadka kan dhalinyarada oo baxaaho meesha ay aayahooda dambe wuxuu noqon karayaa muxuu ka garan karayaa xaqaan ma garan karayaa maxaa maskaxdiisu waa awdanta waxay ku awdan tahay waqtigii hore kaliya marka waxay la tahay hadalkan dib inaan ka sheegtaan raba laakiin han faafuriya iga boobtay aan marka ka joogsado oo hadalkayga meeshaan rabay inaan ka bilaabo aan ka wato aad iyo aad baan maqsuud uga noqonayaa in Jaal Cabdirasaaq amaanta us idinka sheegayo inaad ku sifowdaan mana aha amaantaasu mid dadkii horeeto qoladina dhalinyarada waxbay ka sheegtaa waxay oran jireen waa isu hiilin jirnay mar haddaan qurbaha joogno waa istaageeri jirnay waxbaan istari jirnay laakiin dadka waqtiga kan casriga ah waxaad moodaa caqligaasu inuu nin walba nafta nabiga ummadda in lagu socdo laakiin sida hadda uu igu warbixinta Jaal Cabdirasaaq igu siinayo waxaad moodaa inay xeerkeen inaydan ka leexan oo ahaa in qurbaha dadka Soomaalida ah ay iyagu noqdaan kuwii hameen iyo maalin isku tiirsanin ilooba waxyaalihii ma garanaysaa muuqan karay aynan ogolaanin qofkooda liita in uu liidashadaas ku tago ama la xusgelinta ha noqoto waxaan leeyahay yani meesha isagoo ku cusub inay dejiyaan ha noqoto ama hadiiba dhoofid iyo meel kale u dirid ay tahay inay taageeraan oo isgudbiyaan ha noqoto caaday inoo ahaan jirtay Soomaaliya weligeed oo dhoofi jirtay waa kuwa nimankii aabbayaalka oo ahaan jireen intii ka hartay iyagaa marag u ah baan moodahaya iyagu hadday halka joogeen oo dadka America ku nool oo ay jireen meelo badan dadkeenu ku noolaan jiray baa jiray Carabiya jirtay Yurub baa jirtay meelo kale oo ka sii qalafsan baa jirtay laakiin waxay ahaan jirtay caawada Soomaalidu inay weligeed magaca Soomaaliyeed inay daafacaan qurbaha markay jiraan gudahooda wax kasta waa isku birqlayeen marka tiibaad haysaan baa la yiraahdo kulli faan iga weynaan kara ma jiro haddaad laynkaas haysaan waxaan moodayaa qofkii qurbaha ku nool oo muxuu ahaa isagana sharafkiisa iyo noloshiisa ilaaliyay kii walaalkiisa ahaana taakuleeyay oo kaalmeeyay inuu ugu fadhiyo qiimo ballaaran dalkiisa naftiisa iyo muxuu ahaa ummadiisa intaba yani matal fiican inuu noqon karo waxaa la isku tilmaamaa haddii haatan qof adinku wax uun baasho mid Soomaaliya wax baashay baa leeyahay hadduu wax wanaajiyay mid Soomaaliya wax baashay baa leeyahay hebel lama oranayo sida caadada markii qurbaha la joogo taa aad baan u raacsanayaa anoo tixraacaya Cabdirasaaq warbixintiisii wanaagaas uu ka sheegayo kaalmeynta walaalayaalkiin muxuu ahaa ama si kastaba ku yimaadaan inaad u kaalmaysaan shaqo geysaan wax la qabataan xilkasnimadaasu caadana waa u lahaan jirnay haynteeduna anagu xagga waxaan soo celinay wixii aynu inagu lahaan jirnay
wixii bilaashka ahayo meelaha banaanka laynoo keeno way iska turno wixii faa'iidada ma aynaan turin mana tuuri doono laakiin wixii xunka ahayo bilaashkaana waa turno marka micnaheedu waxa weeye inaadan hiddaheenna iyo dhaqankeenna inaad haysanin waana inoo guultaas waanaad ku mahadsantihiin haddaan sii gudbo waxay ila tahay xaq baad u leedihiin in aan wixii aan ka gaaro oo warbixina dalka inaan idinka warramo anoo jecel in aan ka run sheego 5 sannadood wixii hawlahayo la qabtay waxay ila tahay ma aan ku tirin karaa halakan laakiin ama buug baa ka soo baxda statistics ama wax badan baa ka yimaada waxaanan weydiin doonaa bacdama dad dhalinyarada aad u badan tihiin dad wax bartan aad u badan tihiin si aad informationka dalka ula socotaanin in laydiin soo diro alaabtaas annagoo usoo dhiibayna safaaradda si ay idin gaarsiiso iyaduna markeeda laakiin ma soo koobi karo maxaa wacay ama annagaa yasayna oo isla 5 sano oo dhan miyaad intaas waxaanu leenahay waxba ma aydan tarin baanu aaminsana runtiina saas weeyaan inaan aaminsanahay ama muxuu ahaa haddii la tiriyo waa badan yihiin qiimo inkastaba ha la ekaade balse haddaan guudka ka taataabto waxaan odhan karahayaa intii taagteenna markaynu miisaano aqoonteennu intay leeg tahay aqoonta waxaan u taabanhayaa waxa wax dhaliyaa waxa weeye qofka maskaxdiisa iyo aqoontiisa wax dhalisa dhulku barwaaqo kasta oo yahay haddaan maskax siyaasiyan bisil oo garan karta ummaddaana waxay u baahan tahay cilmiyan dhisan oo markii loo dhaqaaqo fikraddii ay timaado hirgeliya wixii la rabay ama qorsheeya si hufan u qorshaysa iyo mid hawlkar ah ee fulisa haddaan la helin barwaaqo kastoo dalka jirta dalku sidiisa unbuu iskaanaya lakin waxba ku siyaadi kari maaya marka haddii loo eego yacni intaba saddexda dhanba haddii loo eego intii kartideenu la ekayd haddii wixii dalka yiilay loo eego haddii dhibaatooyinka badnaa oo ama xuduudyada nooga soo baxayey ama muxuu ahaa nagala darsaayey fikradda aada u hooseysa oo ummaddeena loo eego waxaanu isleenahay intaa ka badan ma samayn karteen anigu mar badan markaan la hadlaayo dadka soomaalida ah oo waajibku haddii uu ka saaraa inay iyagu naftooda dhismadeeda u halgamaan waxaan idhahdaa waa ka badin karnay waana aan ka dheerayn karnay laakiin ma aydan garan war runtii welisay tahay laakiin markaan objective loo hadlo yani run ahaanta marka amaan tixraaco taariikhda aan tixraaco waxaan rumaystaa inaynaan intaas ka dheerayn karin ayaan rumaystaa haddaba haddaan taabto xagga siyaasadda waxaynu gaarnin waxa weeye inaynu aada ugu dadaalno inaan dadka kan soomaaliyeed u tilmaano dhacsiino runtoodu midda ay tahay been ku noolka inay ka baxaan yani dhaldhalaalka beentaa iyo waxaas beenbeenta inay aaminaan inay u hanqaltaagaan dad kale waxay haystaan tabcadeen ku dhinteen ay gaareen in ay muxuu ahaa ka sugaan ummad kaleeto wixii iyagu ay u baahan yihiin inaan aaminsiino in aan muxuu ahaa nina wax uu leeyahay oo adan adigu lahayn ayn marna ku deeqaynin waa midaan kaga maahmaahay cuno aadan lahayn waa lagu daaca qurbaan maxaa waxay baahi baa ku haysa dhereg baad isleedahay markaas xabad kugu bukoolaysa ilaa mar kale ma helaysid laakiin waxaad adigu tabcato ku dhiiday in qiyaasoo fiican bacdamaa kii tabcaday aad tahay haddana berri waa tabcan doontaa muxuu ahaa waad si qiyaasaad u socota marka halgankeena ugu ballaarna waxay ahayd bislays maskaxda ummaddeena ujeedda inay iyagu qiimahooda aadamiga gartaan inay iyagu gartaan in dalkooda khayraad ku jira inayan heli karin wax khayraada haddayan iyagu kula soo bixin maskaxdooda iyo muruqooda urursan haddayan kula soo bixin waxba aynan suuroobeyn taarikhda aadamiga ku fadhidaa xaqiiqday ku fadhidaa si cilmiga markii loo dartay sidaa noqonaysaa ninka bedeli karana ma jiro haddii dalkan maraykanku wuxuu ka mid yahay dalka qaniga ah kuwo kaleeto wada qaniyaa jiraan waxay leeyihin hadday hadda inta inay jecladaan inay soomaaliya ku tuuraan ay damcaan weligaa kuma dhergin karaanin runtii saas bay ahayd dagaalkanagu laakiin waxa dhergin karaa waxaa weeye fikradooda oo u bislaata inay iyagu dantooda u halgamaan fikradooda iyo muxuu ahaa iyo muruqooda ay ururiyaan wixii yaroo ay haystaan oo ay ku kaalmeeyaan halgan run ah oo ay galaan suunku ay dhexda ay ku adkaystaan taa un baa dhalin karta khayraad tan baa sida ahaan jirtay dadkeedu gaajo u baktiyi jiray xabad bay isku boobi jireen
waxay la tahay taariikhda nina iloobi kari maayo laakiin maxay u bedeleen waxay u bedeleen sida hadda ay tahay dad baa waxay moodayeen sidaas ay tahay inay ku timid waagii horeeto kuma imaanin sidaas marka inaanu isfahamsiino dadkeenna taa inaanu ka soo celinno hawadooda beenta ah hawadii beenta ahayd inaan ka soo celinno iyo indhahoodii ka talowsanaa badaha inaanu ka soo celinno war kuwaa waxma idinkuma jiraan waxna idin tari maayaan hoos indhihiina u jeediya haddaad dad qiimaynaysaana kuwaa adinka dadkiina qiimeeya waxa idin haranay wax qabsada iyaga nabadgelyadooda inay isnabadgeliyaan cadaawadda xasadka xanta xaqirka dhabarka wareenka ayagu isku hayaan dilka muxuu ahaa inay ka tanaasulaanin maxaa wax faa'iido ay leedahay ma jirto in ay marka gartaan macaamilka kaleeto adduunka ay laleeyihiin ama xuduud beenaadyadaasu ha ahaadeen ama kuwa kaleeto ha ahaadeene qoomiyadooda ummad ahaantooda soomaaliyeedna inay gartaan xaggeen ka gaarnay waxaan ka gaarnay in uun kolleyba muddo 5 sano ah juquf ma maqnaanayso gununac yar yar iskama maqnaanayo waa iska jiraya maxaa haddaan waxba la haynin gunucu ma jirteen hadday jirtana si kale u jiri lahayd laakiin haddii wax la qabto contradiction baa imanaya waana sandulla inuu yimaado maxaa ay kolleyba qof bay taabanaysaa markay dad badan dantooda teegaarayso iska logic marka waxyaalaha sirarku way iska jiri karaanin laakiin waxaan anigu oran karahayaa heerka ay joogtaa ma xuma haddii sidii aynu horay ugu dhisnayn structureki aynu ku dhisnayn oo loogu yeeri karay political social economical structureki aynu ku dhisnayn haddii loo eego oo aanu isku daynay dhammaantii inaan dudumino maxaa mid Soomaali wax ugu yaal ma ahayn Soomaali dad ka reebay adduunka buu ahaa kaas oo ku base garaysnaa qabyaalad iyo danaysi ku base garaysnaa ka inaan jajabino oo aynu ku dhisno muxuu ahaa hab cusub ah Soomaali mid ah siman tabcatana xornimadeedana ku dagaalanta haato dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada intaba waxaan is leeyahay kolleyba markaan eegno dadweynaha meel kastaba ha joogtee in uu yahay runtii meel fiican inuu marayo kolleyba intiina tano qaraabaad ku leediin Soomaaliya qof sidiisa u dhinta maahan dadkii la jari jiray maanta ma jiraan waxa celiyayna ma aha forces fara badan oo aan miyiga ku sii daynay oo magaalo ku ma aha waxa weeye damiirkooda wadaniga oo koray ama siyaasiga oo koray oo gartay inayn daruuri ahayn inay iyagu macna darro isu laayaan waa jira hal dhugle mid uu baraka beela laakiin xudud beenaad ka sheeyay gudahaase waxaan filayaa waxa hadda idin ka soo gaaray dhawaan inay jirmaan adduunka laba habba lagu dhaqmaa wixii si baqtiyay mooyi ama hore u dhamaaday habna waa habka anti goosadka habna waa habka anti wadaagga waxa si dhamaadaan sheegaya waa boqortooyo matalan yani waa baqtiday maalin walba ilig si dhacayo weeyaan haddii wax ka hareena kolleyba waa wax baaba'ayo weeyaan maxaa ka dhaxayn karay waxaa ka dhaxayn kara keeni qabiil ku dhisnaa wareerebel yaa maanta usoo galaya reerebel yaa u qabsanaya yaa iskuul ugu jira iyo yaa askar ugu jira iyo yaa magaciisi iyo waxa loo tooqo oo lagu faanaaba halkaa ay ku dhisaalaysnay taa kaliya ku jirtay anigu magaceeda wacal baan u baxshay hab wacala siyaasiya wacala baan u baxshay laa xagga haddii kaleeto waxaan loo bixin karaa mid duqoobay oo waa hore dhintay ummadihii ka tageen annaga keliiso anaga fadhino baan u fiirin karin ma jirto adduun iska hawtaleemagu ma jirto ama hanti goosad baa lagu dhaqmaa waa nidaam siyaasiya oo lagu dhisaaleeyo ama lagu dhiso dalkaaga dhaqaalihiisa tacliintiisa bulshadiisa lagu habeeyo weeyaan matalan meesha aan joogno oo adduunku isdaba koray dad badanuna ay aadama ka weynaanaya alla yara ma noqona ay joogaan runtii sidaas weeyaan midna waxa weeye dhabaha kaleeto loo marana waa midda kan la yidhahda hanti wadaagga kaas oo muxuu ahaa aada moodo amaba runtu ay tahay in uu ku timid siyaasa ahaanteeda dad liita aanna ogolayn liidashada inay cimrigooda ku dhamaystaan ee doonayaan inay ka baxaanin khasbaan iyagoo ku isticmaalaya fikradooda iyo quwadooda iyo aadaminimadooda inay khasbaan inay gudbaan heerkaas foosho xun midna waxa weeye mid habsinaana ku socota oo muxuu ahaa ummadoo dhan ay muxuu ahaa u siman tahay khayraadkii midna waxa weeye mid kudlado iyo dabaqado ku fadhiya oo dabaqadaas kaliyo ama kudladahaasu ay ladan yihiin farid annagu markaanu teen indhaynay waxaanu nidhi maxaa bedeli karaa habkii aynu siyaasiga ahay aan ku dhaqnayn hantigoosad walow wacal us ahaa kolleyba wuxuu urinhaya hantigoosadkii u urinhaya marka maxaan haynaayo hantigoosad aan ku dhisi karnaa hantiyo ma jirto waa ogna
يعني dad adigu madaxooda ka abuurtaan baa jira inay hanti goosad yihiin inay xoolo leeyihiin inay ladan yihiin iyagaa fikradooda ka abuuran jiray haddaan aragnana annagu kulley waxaanu naqinay raggii xoolo qabeenkii reerkii xoolo qabeenka aanu naqin xaqiiqdii markii muxuu ahaa inta kacaan ku dhashay aanu fatashnay buuggoodii bankigana xoolihii shicbiga haystay wax kale ma haysan runtii markaad u fiirsato fikrad hanti qabeennimo ah ayaa jirtay laakiin hanti wax qabay ma aynan jirin haddaba hantidiisee lagu dhalin karaa intaas aynu hoos joognay muxuu ahaa dadkii iyagu habka hanti goostaa ku dhisnaayeen maxay ina tareen hantida inoo dhiseen waa maxa waxba ballan iyo muxuu ahaa ballanqaad iyo muxuu ahaa ishaaratus laakiin wax ka dhashay aynan jirin ayaa joogay meesha war maxaynu yeelnaa dadkaasu waa ka dad aadaminimo haddii la yidhahdo dadna kama qiimo badna kama caqli roona kama adkaysin badna bacdamaas fikradoodii siyaasiga ay bacsan tahay oo dulaysan tahay uma ay suurtoonin wax qabsadaan dalkoodu taajir weeyaan dhan kastaba haddii laga eego xaqiiqadii waa saas muxuu ahaa kama faa'iidaystaan war maxaa inoo tala ah oo aynu gacanteena ku jirno waxaa inoo tala ah inaanu dadka kana aaminsiino quwadooda aadamiga ah dalkooda khayraadka ku jirana u tilmaano ka gadaalna inagoo isku duuban aynu dhammaanteen qaadano yaambo iyo buris iyo faas aan qaadano ee aynu qasabno nolosha markaasna aan bedelno yani habka dalku uu ilaahay u sameeyey ee aynu ugu bedelno habkaynu inagu doonayno kaas wuxuu ahaa habkii hanti wadaagga ahaa annagoo isle maslaxadda ummadda badan bay ahayd ama waxaan odhan karaa kii fikradiisa dulowday hab kastaba ha ku dulowday ee qof kastoo soomaaliya maslaxadiisa maxaa waay dhaba kale u banaan oo ma jiro us wax ku gaari kara oo adduunka hab heerka uu marahayo uu uga daba tegi kara ma jirtaba siyaasi ahaan marka waxaad moodaa inaan ku yara fogaaday fasiraadaheeda bal inta aan kaga haro waanan isleeyahay hanuunintii meel fiican bay maraysaa magaalada waa ka kaxaynay miyigay maanta sii dhex dabaalanaysaa walow iyaga naftoodu raadiyahooda ay meesha kala socdeen ama ay iyaguba magaalo ameen maalin ay imaanayeen haddana waxayna kaliftay inaanu dhex geyno dadka runtii sida ay ahayd waana ku shaqaynayaan maanta cadad kumanyaal ka shaqaynaya maanta in ay weli kusii adkeeyaan dadka kanu sidii habboonayd ee ay u wada noolaan lahaayeen naftoodana ugu halgami lahaayeen siday iyagu u dhisaan noloshooda ama u tabcadaan ama isu nabadgeliyaan u wada noolaadaan haddaan xaggii ka hadlo bulshada waxaan moodahayaa bulshadu waxaa lagu tilmaami karaa xag tacliimeed xag caafimaad xag wada noolaan yani hab wanaagsan oo lagu wada noolaado saa un baa loo qaybin karaa baan filhayaa waxaa bulshada lagu tilmaamo xag tacliimeed waxaan filaya waad ku cilmi leedihiin in mutacaliintu aynu ugu talagalnay inaanu diidno kudlad yar oo lagu hayay koolajo lagu koolkooliyey inay waxyaqaan soomaaliya u noqoto laakiin inaanu cilmiga kaxayno ee aan geyno tuulooyinka inaanu goyno xaafadaha in muxuu ahaa iskuolku uu qof kastoo soomaali uu u helo janis isku barto yani inta yar oo iska bixin karta kolleejooyin yar oo loo abaabulay inay iyagu elite noqdaanin dadka hadhowto monobolyo ku haysta inaanu ka saarno cilmigu inuu ballaarto qof kastoo soomaaliyana janis u helo markuu janiskiisaas qof walba kartidiisa iyo caqligiisa iyo raganimadiisa inuu berri ku meel maro isago ama uu dalkiisa wax ugu taro waad ku cilmi leedihiin in tacliintu ay bilaash tahay aan xoolo laga qaadanin meel kastaba ha joogtee waad ku cilmi leedihiin in muxuu ahaa tuulooyinka iyo magaalooyinka si yani muxuu ahaa abaabinta horeetaba ay u hagaagto laga sameeyey wax la yidhaahdo ubax ama kaah la yidhaahdo ama ubax la yidhaahdo markaan kaah leeyahay waxaa weeye kuwa oo kaleeto in la geeyo meel lagu xanaaneeyo dadku awood uma wada lahaa inay gartaan ilmaha habka wanaagsan oo aymay u habeeyaan marka meelaha caynkaas inaanu u samayno si ay dhakhaatiirta ugu tegi karto ama loogu abaabin karo habka wanaagsan bulsho caafimaad qabta ay ku kori karto waxa ku xiga wax ubax la yiraahdo waa kuwa xoogaa roon iskoolaadka yani ibtidaaga galaanin iyagana in muxuu ahaa lagu habeeyo si wadaninimo ah si aadaminimo ah si habsamiya walow tacliintooda ay wataan in muxuu ahaa la gaarsiiyo iskoolaadka hoose markii la gaaro in aan fidino waa inuu iskoolka geeya isagana xolo laga rabaa ma jiraanin laakiin kolleyba iskoolka inuu geeya khasban bay ku tahay ilaa uu ka gaaro iskoolka muxuu ahaa dhexe meeshu ku dhammaado markaas ka gadaal waa u leexan karaa ilmuhu ama farsamo xaggeed ama waa wadan karaa tacliintiisa hadba suu isagu rabo
laakiin ilaa heerkaas in ay tahay sandullaynay waxaan filayaa inaad ka war haysaan waddanka markii kacaan ku dhashay waxaa ka furnaayeen iskoolaadka sare in yar baa ka furnaayeen waxaan filayaa burco waxbaa jiray hargeysana waxbaa jiray xamarna waxbaa jiray xaggee kaleetoo wax jireen baan isleeyahay maanta waxay joogtaa halkaan hadda aan joogno waktigaan hadda aan maanta marayno heerka uu joogo waxaa weeye regional headquarter kastaba in uu ka furan yahay 15 region oo waddanku uu maanta isu qaybsan yahay inay ka furan yihiin meelaha weli aan dadkoodu iskoolaadka dhexe ka soo baxay ayaan qaadan karin 15 hadday gaaraan qof in iskoolkii loo furo secondary kuma eka intaas laakiin in meeshii magaalooyinka dadku ku badan yahay iyadana in loo furo matalan waxaa ka mid a jamaama ka mid a waxaa ka mid a markaa ka mid a waxaa ka mid a meelaha yacni populatedka ah oo dad badanu ama iskoolaadka hore ay u jireen yacni iyagu inayn ku xiran region ahaan laakiin ay ku xiran tahay ummadda muxuu aha waxbarasha iskoolaadka dhex ka soo baxeen in district kastaba markaas iskoolaadkii awalta regionka keliya joogi jiray ama annagu gobol baan regionkan idhaahnaa si hadda ka bacdi aan af soomaali ugu hadlo districtgana degmaan idhaahnaa marka awalto joogi jiray gobolka in loo daadajiyo ilaa muxuu ahaa degmada in loo daadajiyo si ilmihii tuulada ka soo baxeen oo elementary kusoo dhamaysteen ama iskoolaadka hoos kusoo dhamaysteen ay koodii meesha u dhow ay uga geli karaan haddaan weli kor sii aado waxaan filahayaa inaad ka war haysaan in jaamacad rasmiyo dalka ay ka dhalatay muxuu ahaa leh xubno badan oo jaamiciye leh tii dhakhtarnimada tii muxuu ahaa dhakhtarnimada tan xoolaha tan awalta nusuuska kuwii la baran jiray oo ahaayeen muxuu ahaa siyaasadda sharciga dhaqaalaha maxaa ku kordhay iyo hadda in ay magaranaysaa ay jiraanin tii beeraha tii saraaca inay jiraanin midda muxuu ahaa la yidhaahdo farsamada runta loo yaqaano scientific subjects ku leexan karaan oo matalan ay ku jiraanin macdan baarka xisaabiyaha ama xisaab aqoonka midka dheer dheer ama muxuu ahaa noocyahaas faraha badan oo laynka ballaaran leh ay ku jiraan waxaan filayaa 1 iyo 10 iyo 12 faculty inay tahay waqtiga hadda ay sii marayso kuwaayo aan u xulanay kuwayaalka hadda noogu daran marba waxbaa daran laakiin maanta heerka aan marayno kuwa noogu darano ma maxa run ahaan markaan halkaas ka hadlayo dhibaatada ugu ballaarnayd waxay ahayd oo noogu weynayd aan lahaynin macallimiin xaafadaas muxuu ahaa aada qiimaha ballaaran ugu leh tacaliinta adamiga macallimiintii waxayna kaliftay inaan marka macallimiin badan aanu ku qaadno crash oo markaa aanu ku xerayno college dad fara badan waan filayaa 700 iyo googo inay hadda yihiin 200 oo meel ah 300 oo meel ah xankal oo meel ah yani inaanu saas ku xerayno sanada hadda aanu joogno waxaa galahaya xawaaley qiyaas 1500 oo macallin oo loo darbinayo inay iskoolaadka hoose wax ka dhigaan oo dhalinyarada ka soo baxay iskoolaadka sare ama iskoolaadka dhexe kuwa waxaa ka mid a matalan midda dhakhtarnimada xoolaha midda dadka midda macallinimada midda tan kuwaan xaynta oo isku kuusan oo sanada hore wada soconaya ah xagga macdan baarka xagga xisaabaadka dheer dheer xagga engineerinka ama ha ahaato dhismo ama ha ahaato mechanics ama ha ahaato noocyahaas badan oo faraha badan ugu dambaystii in muxuu ahaa aynu la dirirnay 72 wixii ka dambeeyey markii aynu afkeena hooyo qormadiisa aynu hirgelinay anna aan moodayay inay guusha guul inoogu fiicneed ay ahayd in aynu gaarnay heer fiican dadka magaaladu inay intooda badano inay wax bartaan haatana aynu u gudubnay inaynu miyigii kala dagaalano bal bacdama qof walba afka hooyo us yaqaano inuu barto siduu isugu cuno amaba xariiqdimaha kan loo yaqaano xariiqdimo la yaqaan laguna heshiiyey conventional science-ka kanu ilaa farusaas weeye degmadeeduye in dadkii la baro haddana sidii la isugu cuni karo oo qofku uu ugu isticmaali karo in la baro haatana waxaan idinka sheegi karahayaa walow waxyaalo kale ay la jireen haddaan laynka kaliya aado waxaan idinka sheegayaa ardada ku maqano haddii laga reebo militariga boliiska iyo dadka shacib weynaha ah haba u badnaadeen dadka shaqaalaha iyo gulwadayaashuye waxa weeye 22 kun wey ardadu
maanta banaanka ku maqan maalinkaan maanta inta kaleeta markii laga reebo marka waxaa runtii farax weyn ah iyadoo hadda muddo 3 bilood dhan baan filayaa inay socotay waxaan isleeyahay haddayba xiisihiisii batay baan isleeyahay tacliintii waxaad moodaa inaan ku yara fogaaday haddaan wax ka tegayna muxuu ahaa xantaad kaga dhergi doontaan ragga aan meesha wada maraynaa waa badan yahay meeshii juqeeya ama aniga bay weydiiyeen haddaan xagga caafimaadka u gudbo xagga caafimaadku 3 dhowr cayn buu noqon karaa cayn wuxuu noqon karaa matalan muxuu ahaa dadka oo tacliin fiican la siiyo suu qof caafimaad wax uga tari karo su noqdo oo ama dhakhtar ah ama kaaliyihiis qiimo dheer leh waa xag tacliimeed qaar wuxuu noqon karaa muxuu ahaa guryihii iyo isbitaaladii iyo alaabtoodii iyo wixii wax lagu qaban lahaa qaarna wuxuu noqon karaa maamulkii haba ugu weynaadeen xagga daawadii waxaan isleeyahay wax badan kama aynaan gaarin laakiin intii kartideenna ahayd waa dhammaystirnay wax badan kama aynaan gaarin markaan leeyahay waxa weeye inta soomaaliya daawo ay u baahan tahay lacag aynu ka soo bixino kharij kaga soo gadnaana ma jiraanin inaga industry muxuu ahaa daawo laga abuuraana inooma taala ilaa waqti xaadir marka halkaas xoogaa dhib waa ku jira laakiin maxaynu tari karnay waxaanu tari karnay qofka Soomaaliga ah darajo kasta halaado in markuu dhakhtar u yimaado ama kaaliyihiisu yimaado inuu eego isagoo aan xoolo ka qaadan haddii qofka Soomaaliga ah uu muxuu ahaa u baahnaado in la seexiyo dhakhtarkana in la seexiyo iyadoon lacag laga qaadan lana daaweeyo iyadoon lacag laga qaadan midda kaleeto haddii qofka Soomaaliga ah uusan awood u lahayn uu buko iyadoo aan loo eegin meeshuu ka yimid iyo ku yahay iyo midabka uu leeyahay midna aan loo eegin iyo darajo iyo class midna aan loo eegin asaan lagu daaweyn karin wadanka waxaa jira nin meelo yani specialized clinics waxa la yiraahdaa jirta oo aan hadda kolleyba aynaan dharar leekan weli haddii loo baahdo kharajkoo dhan dawladdu inay qaadato aan qaado bixiso iyadoo aan waxba laga qaadaysan waa markii muxuu ahaa qofkaayu la hubsado in uu buko cudurkiisana meesha inaan lagu daaweyn karin oo ama aqoonta dhakhaatiirteenno ayaan dharar leekayn ama ayan muxuu ahaa awoodda farsamada ama hubka muxuu ahaa wax lagu baara aynan keeni karin waxaa jira nin dad aan laga bixinin maxaa wacay waa iska bixin karaan matalan yani kumiyaalka ay qaataan iyo xoogaa lagu tibaaxayo oo hoos ugu shadee leeyahay waxa la leeyahay adigu isdabir adigu laakiin taas waxay ku forortaa qofka aan awood u lahayn haddaan marka aado xaggii tababarkii waxay annaga noogu muuqatay midda ugu horreysa inay tahay qofka marka hore in la dhiso marka inaanu furno iskool aada noogu qiimo badan oo ah kii lagu tababarahayay kaaliyaalka aan ahayn kaaliyaal muxuu ahaa iska qaraabakiil iyo hidihooley ah laakiin marka hore dad cilmi leh inay yihiin dadku ay yihiin iskoolaadka dhexe kuwa dhameeyeen ay yihiin marka dambeetana ugu yaraan 2 sano oo muxuu ahaa crash ah inay tacliintooda galaan si ay hadhowto ugu noqon karaan dad u qalma meeshii aan dhakhtar joogin inay iyagu inta waaweyn ama intay ka iyagu kartidu ay leeyihiin inay qaban karaan meel fiican buu marahayaa sanadii walba waxaa ka baxda labadii sano waxaa ka baxda 60 baan ka baxeen teoreto baan filayaa sanadatan waxaan filayaa inta ka baxaysa 120 inay tahay taas oo markaa socon doonta xaggii kaleeto waxaynu ku dadaalnay in dhakhaatiirta inoo joogtaa bacdama dad dhalinyaro ay ahaayeen wixii ay soo bartayna uun theory ay u badnayd aanuna garan karayno yani niyad sami kasta uu qabo iyo iskuulka wax kasta ka soo bartay kulliba laga maarmaan inay specialization aan laga maarmaynin daruuri ay tahay haddaynu doonayno inaanu ka xorowno dhanka oo muxuu ahaa Nairobi diyaaradda Sifuul iyo Roma u sii soco iyo London u ka warkeedu maalin inuu naga haro inaanu aad ugu dadaalno inaanu dhalinyaradannadii kordhino cilmigooda dad badan baanu u dirnaa specialization dhakhaatiira ama ku maqan ama ka soo noqdeen yani meelaha kan gaargaarka ama dhego ama iyo waxa la halmaala ama muxuu ahaa ilko ama indho ama lafo ama cuduradaas haweenka nooc kasta baa naqaan in dadaalkeeda inaan kuwa kordhino tacliintooda marka balse waa qiimo aanu ku tibaaxayno waxa la yiraahdo qofkii tacliintiisii heerka hore soo dhaafay inuu kordhiyo inay tahay laga maarmaan dhanka kaleetana waxaanu aad isugu jirabnay in muxuu ahaa aanu khasabno
mar haddaan wax noo soo socon doonaa ayn jirin in aanu dhalino iskoolkii dhakhtarnimo waa dhashay hadda 2 sanaad buu sii maraya heer fiican buu xoogaa maraya dhibaatada kaliya uu naga haystaa waxa weeye mar walba professorkii dhigi lahaa yaa weliga lugooyadu ka imaanaysa waana muddo inaan sii dhuntana laga maarmaan bay tahay taasa marka waxay qasbaysaa in muxuu ahaa dad aad u doonto muxuu ahaa kaa kaalmeeya iyaguna meel fiican bay marayaan oo haddaan xaggii saxada aado marka waxay la tahay waktigan haatan oo campaign ku socdo campaignka xubinta ugu weyn oo miyiga lagu hayaa waxaa weeye dadka in la daaweeyo qofka yani awalan horta in la tallaalo oo laga tallaalo cudurrada halista ah oo ay ka mid tahay qaaxadu oo ay ka mid tahay furuqu oo ay ka mid tahay midda ilmaha curyaamiya oo poliomyelitis wax la yidhahdaba ay ka mid yihiin ama wixii kaleeto oo la garan karo tallaal geli kara in laga simo waana laga simay hadda heerkay maraysaa waxaa weeye heer dhammaad ah wixii bukana in meesha ku daaweysmi karaan lagu daaweeyo wixii aan meesha kusoo daaweysmi karinna in loo soo diro magaalooyinka waaweyn isbitaalada waaweyn haatanna aad bay meel fiican u maraysaa marka waxay la tahay xagga haddaan aado bacdama ay leeyihiin waxay su eg ay yihiin xoolihiina marka aan ku daro iyagana sidoo kaleeto tacliintii xaggeedii dadkii tababarkoodii oo dhowr nooc u kala duwan mid yani dadka dhalinyarada ah oo muxuu ahaa iskoolaadka dhexe dhameeyeen oo iyaguna muxuu ahaa markay ugu yaraato 2 sano qaadanhaya tababar muxuu ahaa kaaliye qiimo ku leh kuwo horay u jiray oo lagu celiyo inay iyaguna muddo 6 bilood ay ugu yartahay iyaguna ay tababarkii kusii noqdaan iyo kuwo jaamacaddii galaan intaba iyaan iyadana isku guda wadnaa iyaga naftoodu campaignka kan waa ku jiraan dadka kudadaasi ka mid yihiin waxa hawshoodu ay hadda tahayna waxa weeye iyadoo awalba ay ahaayeen kuwii farta iyo kuwii dadka daaweyntiisa iyo kuwii xoolaha daaweyntoodu ay isku kudadii iyo kuwo kaleeto aan dib ka soo sheegi doono ayay markii dadka aynan waxbaridiisa ka qayb galaynin haddana iyagu ay khaas u tahay inay xoolaha ka tallaalaan waxa cudurka oo ku dhici kara matalan annagu magacyadan u naqaano haddaan sheegno waxaan rajaynayaa inaad garataan waxaa ka mid iya magacyo badan baa soomaliya u taqaanaa looda lugdhis baa la yidhaahdaa sambab baa la yidhaahdaa magacyo kalena waa iska jiraan baan filaya waa mid looda laaya waana la tallaalaa geela dhukaan baa la yidhaahdaa magacyo kale cudurro kaleeto isagana laga tallaalaa waa jira arigana cudurro badan oo nooc waddan in loo sameeyo qorshayn xaq ah oo cilmi ku fadhiya tacliintiisa dhaqaalihiisa wixiisa isu baahan yahay ma ay suuro gasho haddii aynan jirin wax la yidhahdo statistics ama ogaanta runta ah xoolaha dadka iyo danaha kala duwan marka taas baa ku jirta waxaa la socda oo kaleeto oo ku shan ah halganka kan ama campaignka kan dad iyagu u takhasusa siyaasadda dadka kan mobilizationkoodii ama kicintoodii lagala dagaalamahayey waxa kan iyagu dhibaatadu ay isku hayn jireen caqliga aada u hooseeyey oo muxuu ahaa reerka yar iyo qofka yar iyo danaysiga ku xiraa fakrad yani ay u arkaan ummad ahaantood iyo qoomiye ahaantood iyo sida ay u halgamin karaan ay ugu halgami karaan sida u tabcadaan ayaa la socota inta haddaan idiin soo tiriyey in kooxuhuba waxaa loo qaybiyey waddanka muxuu ahaa soomaaliyeed degmadii kastaba waxaa loo qaybiyey xubno yaryara oo annagu aan ugu yeernay beelo marka beeshii walba intaasoo wada socotaa inay ka shaqayso waana hadda ay ku firirsan yihiin waxaan filayaa taasna intaasan ka idhaahdo aan isaga gudbo xaggii dhaqaalaha aan u gudbo wax badan ma aynaan qaban laakiin waxaa noo baxday ishii baa noo baxday waxba ma aynaan qaban laakiin ishii baa noo baxday awal naga daboolayd oo inaan waxbaba aynaan ka tari karin iyo awalna dhacsanaan jirta inaanan beeraha wax kala soo bixi karin baana dhacsanaan jiray badda inaynan waxba ku yeelan karin baana dhacsanaan jirtay industriyadu nimankaas kale inay noo hayaan oo iyagu nooga sheekeeyaan inay xaq tahay baana dhacsanaan jirtay laakiin mid walba xoogaa baan ka taabanay haatan baan geesinimo haynaa iyo garashadeed waxaan filayaa waad ku cilmi leedihiin waddankiinu 3,000 oo kilomitr iyo gogo oo bada inuu leeyahay oo haddana weliba taajira xaan ka hayna marka
marka waxaa jireen dhowr warshadood oo hore loo sameeyey matalan laasqoray warshadeedan oo dawladdu ay leedahay markaasna aanu ku dagaalgelinay ama dad dhalinyaro ahoo badan oo suuqa jooga cilmina aan lahayn xoogooduna micno darro la fadhiyey damiirkooduna u salaysnaa maxaa ahay markay joogto barqadii hargalkii markay joogto oo qof walba hadeed xageed afka maxaad gelisaa oo isku fakero nin buu faraqa ku dhigi jiray ama gabar buu faraqa ku dhigi jiray idib buu dhigi jiray warqadada maanta iga bixi wadata iyo qola wadata laakiin taariikhda un baa runta ka sheegi doonta qola aan xarig u xiranay ma jirto